Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Qodobada horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Harry Redknapp oo saadaaliyay 5 kooxood ee ku guuleysan kara horyaalka English Premier League, Erling Haaland oo boorka ka jafay rikoor uu Sergio Kun Aguero u dhigay Manchester City, Chelsea oo koox kale kala heshiisay xidiga Timo Werner, Erik ten Hag oo ka falceliyay guuldaradii kooxdiisa kasoo gaartay Brighton. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe siina share garaysi barnaamijkana asxaab badan u gaaro. Harry Redknapp ayaa sheegay in horyaalka Premier League uu yahay mid si weyn u furan xilli ciyaareedkan, isagoo magacaabay 5 kooxood ee uu aaminsan yahay inay ku guuleysan karaan Premier League. Xilli ciyaareedkan Premier League bilowday Jimcihii iyagoo kooxaha Arsenal, Chelsea, Tottenham dhammaantooda ay wada badiyeen, halka Liverpool ay ku horkuftay kooxda Fulham. Kulamadii xalay waxaa ciyaaray kooxaha magaalada Manchester ka dhisan. Manchester United waxay la ciyaartay kooxda Brighton, halka Manchester City ay la ciyaartay kooxda West Ham United. Manchester United ayaa guuldaro kala kulantay kooxda Brighton. Tobrihii Premier League ayaa saadaaliyay in Liverpool ay ku guuleysan doonto horyaalka Premier League, laakiin tartan adag ay kala kulmi doonaan kooxaha Manchester City, Tottenham, Chelsea iyo Arsenal. Waxaan dareensanahay in sanadkan uu noqon doono sanadkii Liverpool ay ku guuleysan lahayd tartanka horyaalka English Premier League. Waxaan u maleynayaa in Liverpool ay ku guuleysan doonto. Waa koox cajiib ah, waxayna muujisay xilli ciyaareedkii hore tayadeeda, laakiin waxaa jiri doona kooxo kale oo kula tartami doona horyaalka Premier League. Wuxuu aaminsan yahay in ay ku dhameysan doonaan kaalinta saddexaad. Sidoo kale Manchester City, Chelsea iyo Tottenham waxa uu sheegay in kaalimaha hore ay kasoo gali doonaan tartanka. Kooxda Manchester City ayaa guul ku bilaabatay xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka English Premier League, iyagoona goolasha u dhaliyay xidigooda cusub ee Erling Haaland. Xidiga Erling Haaland ayaa guul ku hogaamiyay kooxdiisa Manchester City kulankiisii ugu horeeyay horyaalka Premier League kadib markii uu kooxdiisa kusoo biiray xilli ciyaareedkan. Erling Haaland ayaa dhaliyay 2 gool ee kooxdiisa Manchester City, isagoo oo kooxdiisa ka caawiyay in ay guul ku bilaabato difaacashada horyaalka Premier League. Kadib 2daasi gool, xidiga Erling Haaland ayaa waxa uu boorka ka jafay rikoor uu halyeeyga Manchester City Sergio Kun Aguero u dhigay kooxda Manchester City horyaalka Premier League. Erling Haaland ayaa noqday laacibkii labaad ee taariikhda Manchester City 2 gool dhaliya kulankiisii ugu horeeyay horyaalka Premier League kadib Sergio Kun Aguero. Timo Werner ayaa ku laabanaya kooxdiisa hore RB Leipzig kadib markii ay kooxda Bundesliga Blues kala heshiiyeen saxiixa xidigana. Xidiga 26 sano jirka ayaa doonaya inuu isaga tago Blues xagaagan si uu u biiro koox uu si joogto ah u ciyaari karo. Werner ayaa ku dhibaatooday Chelsea 2 sano uu joogay, isagoo aanan goolal badan u dhalin sabab la xiriirta inuu ku dhibaatoonay qaab ciyaareedka. Kooxda RB ayaa ogolaatay in ay bixiso lacagta ay Chelsea ku qiimayso xidigan reer Germany si ay ugu celiso kooxdeeda inta lagu jiro suuqa kaliibsiga ciyaartoyda. Timo Werner ayaa maamulka kooxdiisa ka codsaday inuu doonayo inuu isaga tago kooxda si uu ugu laabto kooxdiisa hore, taasi oo ay Chelsea ka ogolaatay. Erik ten Hag ayaa ka falceliyay guuldaradii kooxdiisa kasoo gaartay Brighton. Tababaraha kooxda Manchester United Erik ten Hag ayaa ka falceliyay guuldaradii kooxdiisa kasoo gaartay Brighton kulan ka tirsanaa horyaalka English Premier League. Manchester United ayaa guuldaro ku bilaabatay xilli ciyaareedkan horyaalka English Premier League iyagoo jooga garoonkooda Old Trafford, isla markaana guuldaro kala kulmay Brighton. Brighton waxay ahayd koox fiican, ammaan ayuu ugu qaweeyay tababaraha kooxda Manchester United kooxda Brighton, waxaana uu sheegay in kulamada kale kooxdiisa ay isbedelo fiican ay sameyn doonto. Erik ten Hag ayaa waxa uu noqday kulankiisii ugu horeeyay ee uu hogaaminayay kooxda Manchester United ee Premier League. dhanka kale Erik ten Hag oo durba albaabka dambe ka galay taariikhda Manchester United. Tababaraha kooxda Manchester United Erik ten Hag ayaa durba
albaabka dambe ka galay taariikhda Manchester United Premier League kadib kulankiisii ugu horeeyay. Kooxda Manchester United ayaa guuldaro kala kulantay Brighton kulan ka dhacay garoonka Old Trafford kana tirsanaa kulankii ugu horeeyay horyaalka Premier League ee Devils ay ciyaarto. Guuldarada ayaa la macnaayay in Erik ten Hag guuldaro ku bilowday shaqadiisa kooxda Manchester United kadib markii kulankiisii ugu horeeyay uu lumiyay. Kadib guuldaradaasi, Ten Hag ayaa durbays ku qoray taariikhda dhinaca qaldan ee Manchester United horyaalka Premier League. Erik ten Hag ayaa noqday tababarihii ugu horeeyay ee guuldaro la kulma kulankiisii ugu horeeyay ee horyaalka Premier League. Ten Hag ayaa raacay wadadii uu maray tababarihii kooxda Manchester United Louis van Gaal kaasi oo guuldaro kala kulmay kulankiisii ugu horeeyay kooxda Swansea City. Guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka.